السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal mar kale iyo muuqaal cusub. Waxaan taaganahay bartamaha magaalada Hargeysa, Somaliland 5 cisho ka bacdi oo ku beegan 13 Noofambar waxa ka dhacaysa doorashooyin is saaran oo ah doorashada madaxtooyada Somaliland iyo xisbiyada qaranka. Saddex musharax ayaa ku tartami doona jagada madaxweynaha, sidoo kale saddex xisbi qaran ayaa soo bixi doona natiijada ugu dambaysa. Waxaan dareenkooda ku aadan doorashada wadiin doona shacabka reer Hargeysa ee magaalada Hargeysa ku dhaqan iyo maxaa heeday cidda ay dooranayaan iyo cidda ay u codeynayaan marka loo eego dhinaca madaxtooyada iyo sidoo kale xisbiyadaba. saaxiibayaal haddii tahay markii ugu horeysay filnaa soo booqatay kanaalkan subscribe saar saaxiibadana la wadaag. soo dhawo walaal Somaliland waxa ka dhacaya shan cisho ka bacdi doorashooyin madaxtooyo iyo sidoo kale doorashooyinka ururada siyaasadda xisbiga wato iyo madaxweynaha dooranaysa. أنا واحد دورنا أدي لايك دقو إن شاء الله دحوينا مستقبل كعبد الرحمن محمد عبد الله أيرو حق أورك مثلا يا جنا إن أورك كه وجامينا يتشاكر في السياسة حميد حاج عبدي walaal soo dhawo horta magaca ku bilow. Somaliland shan cisho ka bacdi waxa ka dhacaya doorashooyin madaxtooyo iyo sidoo kale xisbiyada doorashooyinka cidda dooranayso saddexda musharax ee ku tartamaya iyo maxay haday iyo 10ka xisbi ee ku tartamaya balka waran. horta magacayga waxa la dhahaa Buuja aan saddexda xisbiniyo aan waxaan wataa wadani ma garatay marka dalku gurmad buu baahan yahay ila badbaadiyo baahan yahay adeer Muuse bixin waxaan leeyahay adeer waqtigaaga uu dhamaado meesha iskaga kacniyo wada filadana anaga kursiga saarna cirro taanu waan subaayo gabadh subtaanhay kursigana Cabdiraxmaan Cabdilaahi cirro ayaanu saarana cod kale waanu siinaynaa ururka ka Maxamed Xaashi miyada waalanta isbahay sugaa noolaato kaasan wata anigu walaal soo dhawo aba magaca ku bilaabaya Somaliland shan cisho ka bacdi waxa ka dhacaya doorashooyin saaran madaxtooyo iyo doorashada ururada siyaasadda madaxweynaha dooranaysa iyo sidoo kale ururka oo dooranaysa xisbi qaran maxay صح ولا ندوي هاي أنا مقاعد كبلها بيا أحمد عبدي هذا كمان قاعد يوالد ديدا نيو دي واحد دورنا يا ذلك موسى به عبد حديد نيو أركز لبضع الشو إذا صار في ودك السوق وقديرين نيو والله أحس مويان قرم إنه ما يستين ما يدرين نيو أقرانسا أب واحد هنا موسى ما تدرين يا وتحس كعبد يا نيو الدنيا حول يومين ساعة marka xalleena Muuse Bixi Cabdi Xidii aab mar kale soo noqo 7 sano iyo mar kale niyo xisbi urur waxaan dooranaa muxuu ahaa arab muxuu ahaa horseed daraw Cabdilaahi darool baan dooranaa niyo aab wasaas walaal soo dhawo magacaaga ku bilaabaya Somaliland shan cisho ka bacdi waxa ka dhacaya doorashooyin madaxtooyo iyo doorashooyin urur siyaasadeed madaxweynaha uu dooranaysa 5 sano soo socda iyo ururka dooranaysa ayna la wadaag. bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan horta ugu faraxsanahay in Somaliland doorashooyin laga qabto wax badan ee Somaliland ay soo gashay doorashada dadka ay isku naceen ee madaxweyne Biixina uu la meereysada galiyay maanta reer Somaliland aad arkaysid aad baan horta ugu farxay in Somaliland ay doorasho ay qabsato waana guul weeyaan dadka reer Somaliland meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay midnimo ay abuuraan oo ay dad walaalaa noqdaan oo arrimaha siyaasiyiintu ay wataan fashilmay ma jirto maanta xusbiyada qaar kamid oo kulmiye kamid yahay waxay ku ololeynayaan kala qaybinta bulshada wali ma aragtay kulmiye oo dadka caafimaad kala hadlaya kulmiye oo waxbarasho kala hadlaya kulmiye infrastructure ka hadlaya kulmiye wuxuu ka hadlayaa kala qaybinta bulshada because no way kuma qodbadayn karaan inuu dadku ku dhaado waxa aan qabanaya waayo because of taas way soo xidhantay waxa weyn waa qaybin bulshada dhexdeeda tiina waxyaabo lagu qoslo waxa kamid ah dadkii aad u fahmay oo islaamiga markuu nin siyaasi oo kulmiye hadlayo ay oranayaan dadku kala qaybinaya dadku waxba u sheegi maayeen taas waa mushkilad weeyaan dadka reer Somaliland waa walaalay hal mideeyo ninkii fashilmay yaanu kulba qabiil iyo qaybin iyo kala abtirin yaanu ku soo fuurin dadka reer Somaliland way ka soo gudbeen waxa soo dhan 30 sanadood bay dhismayeen wax baranayeen ninka maanta kaaga sheekaynaya waxaan aqligu gali waa nin aqligaaga caaya dadka aqoon-yahanka iyo dadka wax garadka dhani maanta isbedel bay u baahan yihiin in dalka isbedel uu ka dhaco oo la helo hogaamiye fiican oo ummadda reer Somaliland mideeya qofkii doonaya Muuse Bixi iyo xisbiga kulmiye madaxweynaheena oo toonu ducaynaa habaarmayne qofkii doonaya inuu bartaa 7 sanadood uu dib ha u eego 7 sanadood uu dib ha u eego maan Somaliland waa kala qaybsantay wallahi waxaad ka naxaysaa TikTok-yada hadda eegtid reer walba calan yar bay sameysay calan yar ama ha ugu sawirnaato wax yari ama ha ku sawirnaato bisad qoslaysa ama ha ku sawirnaato maxaan ku raadaay walaayo meel ka boodaya reer walba waxay sameysay calan yar bay sameysay disintegrated baa la noqdo dadku way kala daatay
وردتك الرئيس سوماليلاند maanta nin isu ururiyo u baahan war wax garadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaya hadduu suldaan yahay iyo hadduu caaqil yahay iyo hadduu wadaad yahay in burcad la inaga qabto waxaan waa burcad ummadii kala jabisay markastay soo istaagaan markay iyagoo waxbarasho ka hadlaya iyagoo caafimaad ka hadlaya iyagoo waxa ka hadlaya kaliyaata waxay ka hadlaan waa kala qaybinta ummadda waxaas kulmiyay wadani sameeyay maxay galay war waxbarasho dadku caafimaad iyo infrastructure iyo horumar bay u baahan yihiin ama ummadda waxa kala hadla maxay ka hadliba kii horaaban la kula xisaabtamin kii hore ayaa la kula xisaabtamin marka waxaan leeyahay war dadka reer Soomaaliland ha midoobaan reer Soomaaliland ha midoobaan Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato ha midowdo isbedel wanaagsan ha dhaco madaxweynahana ha la nasiyo xisbiga dooto iyo madaxweynaha dooranayso ayaan doonaynaa ku weydiino bakor bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiqani Farxaan Cabdilaahi anigu horta xisbigan wataa waxa weeye waa xisbiga isbedel doonka wadaniga xisbigaas wataa ururkan wataana waxa weeye ka waxaan leenahay Muuse Bixi dalku isbedel buu baahan yahay 7 sano iyo wax ka horeeyay ay haysteen oo kulmiyaas marka waxa uu tarin marka waxaan leenahay isma oran intaas ku jiray waana gees mari isma oran garaade horkii nimankii gudaha soo galay marka waxaan leeyahay talo inay sheegtamayaan hayn adigina ka hayno waxa u baahantiin isbedel buu dalka iyo dadku u baahan yahay sababta markaa u dooranaysa Cabdiraxmaan Xiro aad Muuse Bixi uga dooranaysaa sababta aan dooranaya waxa weeye dalku isbedel buu baahan yahay Cabdiraxmaan waa nin han siyaasadeed leh waa nin diblomaasiya oo dalka maanta isaga ku jira ka saar karaya soo dhaw adeer magaca ku bilow Soomaaliland shan cisho ka bacdi waxa ka dhacaya doorashooyin madaxtooyo iyo maxay haday doorashadii ururada siyaasadda ee xisbiga Soomaaliland madaxweynaha dooto ee dooranayso iyo ururka dooranaysa wakiil waa Muuse Bixi Cabdi Xildiid way israacday waa nin awala ma dhacayo Abubakar Busro uu raacsi أنا نبي أبكر بوصلنا هستري يقبو يودي يورك ودي حسب الدوران سلام هو كلمية ومسبح عبد الحديد بقول صوتك الدوران صوتك الدوران وحوي واو الشرفين تلك السجاد السجاد السؤال جميل هذا بقولها إن يلو في اللي كذا مرة عليه هذا بقولها أبكر بوصلنا نوي دوس عن الفنان هاي هلا يركيك تو هستا سيداوي هستا هو في سريرة قاعدة مركورة بقولها هستا في سريرة قاعدة dalka ay ku saabsantay iyo astaanta maanta socota ku saabsantay laakiin madaxweynaha waxa la madaxweynelkaan magrasa waddankiisa weyn kii wax qaban lahaa ee wanaajila horta waa kulmiye ya isagaa kasbaday kalsoonida nafto isagaa kasbaday kalsoonida nafto kii wanaajila kulmiye walaal soo dhawow magacaaga ku bilaabaya Soomaaliland shan cisho ka bacdi waxa ka dhacaya doorasho madaxtooyo iyo doorasho ururada siyaasadda madaxweynaha wata iyo xisbiga dooranaysa maxay madaxweynaha waa Cabdiraxmaan Xiro xisbiga waa ka madaxweynaha dooranaysa ee 5 sano soo socda iyo sidoo kale ururka uu dooranaysa 10 sano soo socda ayay noo sheegeen la wadaag bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad mahadsantahay magacaygu waa Abwaan Fuaad Maxamed Cabdi Nuur madaxweynaha aanu dooranaya 5 sano soo socota waxa weeyaan madaxweyne Muuse Bixi Cabdi Xildiid oo aan ugu dooranayo taariikh iyo siyaasad bisoo caalamka uu iibgeynayo iyo tan iyo maalintii diyaaraddaasi na rusheynayay aanu biyashiinaha joogneen 4 jirka ahaa ee ay caguhuna bareen ducad ku tani sidii buu noo garab taagan yahay meel la nagagama maqnayn marka han iyo yool buu ayuu ku socday geediga u raraya waa madaxweynihii beesha caalamka wax la qaybsan lahaa ee madaqadeena istiraatiijiga iibgeyn lahaa ee caalamka xaqeena inooga soo goyn lahaa maanta voice-kii adduunku wuxuu soo eegaya madaqadeena istiraatiijiga marka waa madaxweyne caalamka wax inooga soo bedela waxa la inaga doonayaan wixii inooga go'ay ee inooga dhigmay waa madaxweynihii inooga soo goyn lahaa ictiraafkana keeni lahaa haddaan in yar taabto walaalaheedan xisbigan wadani maalinba kelmadda ay yiraahdaan cid baa kaga go'aya barigii aanu yaryarayn xamaamkanu dhaqay jirnay xamaamkan duula si aanu nooga duulin baarkan waanu tifi jirnay baalkaanu ka goyn jirnay intuu reerka baranayo marka marba hadalka yiraahdaan waa dib u dhac iyo hoos u dhac buu ku keenayaa iyagana waxaan kula talinayaa inay siyaasad hufan oo shiilan oo bisil oo cunfiga iyo
iyo qabyaaladda iyo xijra fajaaska ka fiyow inay soo bandhigaan. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا ولا تجعلنا ما علمتنا وبالا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء ومنهم والأموات اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta marka hore waxaan ilaahay ka baryaynaa doorashadii wax yar baa ka hadhay sida sheegtayba horta ilaahay waxaan ka baryaynaa nabadda qaaliye in ilaahay nabad inoogu rido insha Allah bashbash barwaaqo insha Allah doorashada ku galno la kursiga nin baa qaadaya laba nin ma qaade waxa Soomaalidu ku maamada inta nabad jirto ninba laba nin leeyahay marka ilaahay horta waxaan ka baryaynaa in doorashadaas nabad inoogu dhacdo waxaan Soomaaliland ama ummadda la wadaagayaa inaan doorashada ilaashano oo dad waxaan ku kiino imaado weynan keenii in nabadda aad u ilaashano insha Allah oo doorashada aan qalaasa lahayn dhibaato lahayn xurguf lahayn insha Allah inoo dhacdo de kulay waan la codeynaya nin walba nin buu codeynaya oo ku isleeyahay da waxba ama wadka ka bedelaya ama uu filaya in maxay ahayd isbedel uu keeni karaya ayuu qofku codeynaya isaga xor u leh doorashada laakiin muhiimaddu waxa weeyaan iska saarno wixii kala qabyaadiya dhibaato mashaakil keenaya oo doorashada si xor iyo xalaal u galno insha Allah iyadoo codeynaysa markaa insha Allah xisbiyadu waa saddex xisbi waxaan ku wari haddii ilaahay aanu waxba qarsan maaye waxaan codeynaya xisbiga wadan insha Allah aad baan walaal u dhowahay sideen ka warhayno waxa weeye doorashadii 5 cashay nooga arif wadin nagu soo haysaa horta marka hore waxaan ilaahay ka baryayaa in waxa weeye si ammaan oo nabada ay doorashadaas noogu dhacdo haddii aan ra'yigayga ka hadlaan waxa weeye doorashada maanta waxaan u arkaa xal Soomaaliland xalkeeda waxaan u arkaa in waxa weeye isbahaysigaasi soo baxo isbahaysigaas aan dooran lahaa waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaan dooran lahaa ra'yahantayda waayo waxa weeye maanta wadankeenu uma baahna siyaasad qalanqaaliyo qalafsan oo adag madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa weeye 7 sano wadanka ayuu madaxweyne wadanka galwadeen ka ahaa 7 sano wadanka ayuu wadanka wax horumar oo la taaban karo waynu sheegi karno uu qabtay waxa weeye haba yaraatay ma jirto 7 sanaba orod iyo waxaynu ku jirnay waxa weeye seeriyad iyo reer ku joqsiyo kala qobqobiyo ummadda Soomaaliland walaalahayd ayaa la kala qobqobay siyaasad xumo aawadeed marka haddii aynu maanta mar labaad madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dooranno waxa weeye waxba inoogu hagaagi maayaan wuxuun baa inaga sii xumaanaya waxa weeye waxa loo baahan yahay maanta in Cabdiraxmaan Ciro aynu si garab taagnayn codkeena ugu hiilino